waa tahay daawadayaal waxaan halkan la taaganahay Jeelani Maxamed Xuseen oo ah gudoomiyaha hay'adda CARE qaybta gobolka Minnesota halkan dabcan waxa uu kamid ahaa dadweynihii faraha badnaa maanta banaanbaxan iskugu yimid dabcan laga soo horjeedo go'aamada ama wareegtooyinka uu soo saaray Donald Trump ee waliba ku saabsan kuwa lagu joojinayo dadka u dhashay toddobada wadan ee wadanka Mareykanka soo galaya isaga ayaan jecelahay bal inuu iga warramo banaanbaxan iyo guud ahaan waxa uu ku saabsanaa iyo waxyaabaha ay dadka la hadlayeen Jeelani waad mahadsantihiin horta maanta waxa weeyaan dadkii baa soo baxay wareegii ama dhaqaaqii madaxweynuhu sameeyay jimcihii meel walba Mareykankii hadda la soo baxay mudaharaadada ka socda airportadii ugu waaweynaa Mareykanka kullu dadkii oo runtii ka xumaaday dhaqaaqii oona le maaragtay waan ka dagaalamanaa waxa oo suurtagal xitaa noqotay in maxkamad loola tago arinkii oo hadda loo ogolaaday dadkii airportadii ku xaribnaa ama diyaaradii ka soo degay ama kuwii la lahaa waa la celinaya in la soo sii daayo wadanka ay soo galaan marka anagu horta rajo weyn baan ka leenahay inaan arinkan ka dagaalamno hay'adda CARE waa hay'adda u dagaalanta dadka muslimiinta xuquuqdooda waa hay'adda ugu weyn ee Mareykanka 35 xafiis baan ku leenahay gobolada Mareykanka runtiina waa hay'ad hadda dib aan isku fiirino sidii aan hay'adaha kale u kaashin lahayn ee aan arinkan aan kala dagaalami lahayn waa garsada banaanbax ballaaran baa hadda wali socda qaar halkan dad fara badan oo aan Soomaali ahayn dabcan u badan yihiin dadka soo qayb galay waxyaabaha sida gaarka aad u taabanayseen maxaa kamid horta awalan dadku inay ogaadaan waxan wuxuu yahay talabaadna inay dadkii maaragtay loo mobilize gareeyo oo la isku keeno oo ay runtii ay ka dagaalamaan waxa kamid oo kale dadku inay caawiyaan amba taageeraan hay'adaha ka dagaalamay arrinkan hay'adda CARE oo kale kamid tahay hay'ado kale waxa jira iyaguna maaragtay immigrationka ku saabsan oo dadka xuquuqdooda dhinaca immigrationka wax ka qabta in hay'adaha la dabar taagan yahay oo la taageero ama maalgelin amba qofkii maaragtay waqtigiisa siin kara waqti deeqi kara ee waqtigii ku caawin kareedii inay soo maaragtay sheegaan oo hay'adaha ay maaragtay ay runtii caawiyaan waxyaabaha kale dadka hadlayeen maaragtay in maaragtay wadankan uu yahay wadan mar walba uu furnaa soo galitaanka dadka ajnabiga ah gaar ahaan dadka wadamada dagaalada ka socda ka imanayo taariikhda wadankana qof walo cusub dadka xitaa Donald Trump awoogi wadankan sibuu ku soo galay waxa weeyaan dadka maaragtay Native American loo yaqaan mooyaane cid kasta oo dhan wadanka way ku cusub tahay waxayna ku soo galtay albaabka furan ee loo furay dadka maantana waxaan rabnaa albaabkii furnaa in dad walba uu furnaado oo aanan loo dooran amba la diidin dad diintoodii daraadood marka waxyaabahaas oo kale ayaa maanta aad loo muujinay dad badan oo dhinacyo wada ka hadlay dadka Soomaaliyeed khaasatan qof Soomaaliya tahay Soomaaliduna dadka wareegtooyinkan looga hadlayo kamid tahay waxaan maqlaynaa in qaar fara badan oo Soomaaliya garoomada ay ku xirin walow qaarna la soo daayay arrimahaas hadaad ay ka hadasho niyo waan maqalnaa hadda inay jiraan dad ku xirmay airportyada waxaan la talin lahaa qof walba oo hadda og reerkiisii amba airport ku joogaan inay isla markaa degdeg la soo xiriiraan hay'adaha CARE oo kale kamid tahay anagu 35 xafiis baan leenahay haddaan xafiis lahayn meeshan ku lahayna dad baan u soo diri karnaa hay'adahan kale ee hadda nala shaqeeyo kalaan caawin karnaa waxaan kaloo soo batay garsoorayaal badan oo runtii ka xumaaday wareegan oo iyaguna hadda deeqaya waqtigoodii oona diyaar u ah dadkiina airportyadii markay joogaan u yimaadaan marka qofka ku xayirman ee hadda sheekada maqla ama reerahooda ku xayirman yihiin in ay la soo xiriiraan waa muhiim sidii maaragtay wax loogu qaban lahaa ilaahay hadda dad idila soo xiriiray ma jiraan dad badan baa jira nala soo xiriiray laakiin dad waxa jira wali hadda diyaarad aan soo korin oo laga helaa mustaqbalka inay soo baxaan dad kale waxa nala soo xiriir wadanka jooga oo ka cabsoonaya in wadanka amba loogu imaado amba ka bixitaanka marka dad iska baqdima jira iyo maaragtay wareer oo dadka inay fahamsaneen waxa socda aan waxaan dhihi lahaa mar walba qofku waa inuu mar hadii uu su'aal qabo su'aashi waxa ugu habboon gaar ahaan marka ay tahay waxaan information lawyerintu ay fahamsan yihiin iyaga la weydiiyo oo la iska ilaaliyo dadka hadalka baafinaya runtii waxna ka ogaan qofka citizenka ah wadankan degan runtii xaq wuxuu ka leeyahay qofka green card kaas marka qofka citizenka hadda wax aan dib aan ka aragno inuu wadanka ka baxa uu ku soo laabtay ma jirto laakiin dadkii citizen ka hooseeya ama qaxooti cusub ama green card haysta dadkaas looga baahan inay ka taxadiraan oo waliba weydiiyaan looyerinta amba garsoorayaasha su'aasha ma bixi karaa ma soo gali karaa arrimahaas oo kale baxyo badan ayaa dabcan ka socda meelo kala gedisan oo dalkan Mareykanka kamid ah madaxweynuhuna dabcan wareegtooyinkan uu soo saaray awood buu u leeyahay inuu sameeyo maxay tahay marka rajada aad qabtaan adiga iyo hay'adaha kula midka ah u arkaya go'aanada madaxweynuhu qaadanay inaanay saxnayn maxay banaanbaxyada ka tarayaan in isbedel lagu sameeyo amaba laga hortago go'aanada madaxweynaha horta madaxweynuhu hal goob uu ka yahay qayb uu ka yahay
dawladda Mareykanka soo dhisanta dawladda Mareykanka saddex qaybood buu dhisanta madaxweynuhu waa qayb buu ka yahay xildhibaanadu qayb bay ka yihiin maxkamaduna qayb ka tahay marka hadda waxa la rabaa dadkii inay ogaadaan iyo xildhibaanadu ogaadaan inay mujtamacu ka soo horjeedaan mujtamacu soo bixitaankaasi taasoo ku saameynaya talabaad hadda anagu haddaan hay'ada ahaan nahay waxaan ula ordi karnaa maxkamadaha inaan u aragno wareegii uu sameeyay inuu yahay mid ka soo horjeedaba dastuurka marka taas way noo furan tahay oo waxyaabaha hadda dadaal muujinano banaanbaxyadana hadda waxay u muujinayaan dad badan oo waxa jira xildhibaano oo weli hadalkoodii la maqal amba iyaguba ay dhaqaaq sameyn karaan ka hortag ma aragtay dhaqaaqii ama wareeg uu madaxweynuhu sameeyay aad waa mahadsantiin بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Cabdiraxmaan Mukhtaar meeshan aad u jeedaan maanta waxaa ka socda mudaharaad looga jawaabayo go'aamada uu madaxweynaha cusub ee waddanka Mareykanka loo doortay Donald Trump uu ugu diidan yahay dadka muslimiinta ah ama muhaajiriinta ah ama qaxootiga ah iyagoo waliba sharci ku leh marka qaanuunka waddankan u yaala sharciyada uu sameeyay iyo go'aamada uu gaaray waa wax ma aragtay lid ku ah waana khalad marka waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadka dariska nala ah dadka jaaliyadaha kala duwan diimaha kala duwan iyo gaar ahaan waliba maxaa la dhahay xildhibaan Ilhaan Cumar oo iyadoo arrintan soo abaabushay iyo dadkii ma aragtay arrintan ka garab geystay ama ka qayb qaatay meesha aad joogtaan waa xarunta Brian Coyle ee ku taala xaafadda Cedar oo lafdhabar u ah ama Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota degan ay degan yihiin marka waa meel ku haboon in aan tusno anagoo muslim ah anagoo Soomaali ah anagoo qaxooti ah in aan ka xunnahay go'aankan aan tusnana waddankan in ma aragtay sharci aan ku leenahay in waddankan ma aragtay qaanuun uu leeyahay in aanan ka aamusaynin xadgudubkan cad uu u bareeray madaxweynaha cusub ee la doortay Donald Trump magacayga waxa la dhahaa Deeqa Yaasiin banaanbaxan maanta waxaan ugu soo baxnay dhibaatooyinka ka jira ama sharciyada uu soo banaan bixiyay madaxweynaha waddanka Mareykanka waxaanan u taaganahay dadkeena Soomaaliyeed iyo dadka waliba aan Soomaalida kale ahayn toddobada waddan uu diiday inay waddankan soo galaan marka waxaan ka leenahay waa saayida uga xunnahay waxaas anaga waddankan waan ka shaqaysanaa waxbaan ka baranaa caruur baan ku korsanaa marka kulligeena saayid baan uga xunnahay waxaan uu sameeyay madaxweynaha waddanka jooga Mareykanka hadda qabsaday also waxaan rabnaa inaan message u dirno madaxdii waddankeena Soomaaliya waxaan leenahay waa u jeedin waxa dadkeena adduunweynaha ka haysta waxaan idinka codsanaynaa inaa isku imaatiin aad joojisaan waxyaalahan qiimaha daran iyo lacagtan oo aad ka qaadanaysiin maxaa la jira adduunyaha kale tole inay waddankeena kala jarjaraan waxaan idin leenahay ilaahay ka baqa nafiiriya dadkeena si meel kasta ugu dhiban yihiin sidii iri kasta loogu xiraayo marka dhiig yeesha intaas ayaa message-kaas aan u dirayaa